kusoo dhawaaw barnaamijkii imtixaanaha noo ahaa ee dumartan jeclaada oo ay noo marisay Cabdullaahi oo saaxiibkiisa ku yiri war naga tag adiga yaa ku baray shukaansiga ee horta wax soo baro. Cabdiqani ayaa ugu jawaabay. Cabdiqani oo isku jafo ahaayeen Faaduma ayaa aad ugu carooday hadaladii Cabdullaahi oo sii raaciyay saaxiib waxaan ka balan qaadayaa in aan kala wareegi doono Faaduma. dawadeed Cabdullaahi aad ugu qoslay ayaa yiri ma adiga mise Cabdiqani ayaa ugu jawaabay waa aniga Cabdiqani oo ah. wuuna ka dhaqaaqay xiisadii ayaana dib u bilaawatay waxaana laga soo xarooday iskuulkii. Cabdiqani wuxuuna baadikoob u galay Faaduma ama uu jiriyay. nasiib wanaag waxa uu helay goor ay 7 fiidnimo ku beegan tahay ama 1 fiidnimo iyadoo taagan gurigoodii albaabka salaan buu ku bilaabay. dabadeedna wuxuuna ka qaaday salaantii wuxuuna yiri in yar aan fadhiisano jardiinka guriga agtiisa ah. wayna ka ogolaatay. markii salka dhulka la dhigay ama golasha dhulka la dhigay ayuuna wax hadal ku bilaabay ka waran reeraha way iska fiican yihiin ayna ugu jawaabtay. dabadeedna Cabdiqani ayaa hadal ku bilaabay cajiib weeye adduunyadu caafimaad ugu yaroo culays baaba ay saaran ayn kasta ka eego isku weeyay caafimaad oo calmaday waa maxay. halkaan ayaan ku soo xikinayaa sheekadii imtixaanaha noo ahayd dumartan jeclaada oo xiiso leh. haddaba ha ka dhicin kanalkan la soco qaybta xigta. mahadsanidin.